عمر عشرو waxaan ka hadlayaa dhacdooyin badan oo ka dhacay Puntland dhulkan la burburiyay oo aan la ogeysiin oo markii la yiri gudoomiyaha gobolka inay yeeraya oo gudoomiyuhu nagu yiri dhulkeena weynay qanaan leedihiin xanaada xoolaha bixiseen suuga gudiga amniga imanaya balayagan sugaya oo aanu sugayno waxaan ku wargeliyay in dhulkii qayb kamid ah aan lahayn لحقول iyo ceelkiiba la baabi'iyay alaabtiina oo la xataa ka gurta looran wax ogeysiina iyo wax haba yaraatee waa la doominaya iyo hadda la doominaya iyo dadkii haamee midna aan oran anagoo ku maqan gobolka dhowrayna ma garanaysaa nabadgelyada ayaa dhulkaygii la burburiyay hore bay u ahayd in ma garanaysaa dhulka airportka inta aan bixino ma intii kale waan ku doodayno aniga waliba la xiray xaq darro la igu xiray in la yiraahdo ma garanaysaa dhulkii aan waxba haba yaraatee madaxweynaha yimaadaba uu leeyahay ma garanaysaa bal haddaan qabanaya waxbaan qabanaya been waqtiga kaga dhamaado mar rabno in Puntland ama Boosaaso ama dhibaato ka dhacda mar rabno dad dhibaato horseedana maahin annaguna dad lagu yaqaanay dhulku hubsadaan maahin waxaanu xataa bixinay dan guud baanu bixinay airportka 1 kilomitir iyo bar baan bixinay ranwayga meesha ilaa Tribunalka ilaa qooriga dhagcaan baan lahayn waxa ciidan baa la dijiyay oo aabahay lagu yiri Allah u naxariistee 3 bilood bay ciidan ku tababaranayaan odaguna iyo konton kun bixiya kontonkii kun oo la bixiyay la bixin lahaana 35 la bixiyay 15 wali dawladda gacanteeda noogu maqan tahay oo gudoomiyaha Cabdi Xaafid oo yiri waxay ku maqan tahay dawladda oo markaan dacweeyana oo aan gudoomiyaha dacweeyana la yiri ma garanaysaa dawladda qabta oo Cabdi wali oo yiri dawladda lacagta qabta waxayna kaana weynaysiinaya dokumentiga wadataan baan arkay dad baa xumaan ka shaqeynaya oo dhulka waa ku habsadeen malaha dad badan baa jira oo marka caynka haddana dhulkan dad baa laha dhirtiya daaqaale dawladdu malaha dhulkan la dumiyay dhirtiya daaqa waa ahayd laakiin dawladdii waxay ogaatay inaan meeshan dhir ku beermayn oo ay tahay meel ma garanaysaa tibir lagu beeri karin oo ay tahay bad ay tahay sidaa daraadeedna iib la geliyay iibkiina waxa ku guuleystay aabahay oo gatay dhulkaana aabahay markuu gatay kadib waxa uu yimi wasiirka ceegaag xanaada xoolaha way cabsada waxaan u baahnahay meel ariga lagu talaalo maadaama dekadii halkan timi odaguna dhulka hadda xanaada xoolaha daarta xanaada xoolaha in dad ku sheekeeyaan waliba madax laga dhigay ilma casri reer casri waa la hadalay si dadka loo kala qaybiyo loo kala fogeeyo waa la hadalay iyagu waa ogolaadeen wada hadal baa noo socda dadka kale waa la wada hadlaynaa si dadka loo qaybiyo waxaan isleeyahay dad baa wax rabaa saarta dadka iyo magaca dadka inay baabi'iyaan mana baabi'in karaan awoodna uma leh nin kasta wuxuu ku hadlayna meel bay ku qoran tahay isagaana u aayin guri la dumiyo buu leeyahay guri sharci ah oo la dumiyo wuxuu leeyahay guri sharci ah in la dumiyo ninna kaba xoog weena wiilwaal baa waxa laga sheegay rag walaalo ku waayay marka nabadgelyada in laga shaqeeyo madaxweynuhuna inuu fiiriyo waxa sax ah waa nin reer Boosaaso waa nin yaqaan magaalada tan hadduu siyaasiyeelay dhulkan waa yaqaan waana joogay dhulka Suudiyana waa yaqaan laakiin siyaasiyeel iyo waxa ka muuqda ma garanaysaa marhabaabis uu dhageysanayo dad raba magaalada inay nabadgelyadooda ku ciyaaraan waxay ahayd dadkii waxa ka shaqeeyay oo guryahan dumiyay waxa la dokumenti ma haystaan markaan anagu dokumenti keenay weyno oo la cadeyn waayo gudoomiyaha gobolka Abale anaaba joogayba magaalada soo dhan baa og yar iyo weyn dhulkan inaan leenahay dhirtiya daaqa ahayd casre laga iibiyay anji dhulaba dad laga iibiyo dad ma garanaysaa dawladda ka iibisay wixii dawladdu ay dad siisay ama bixisay ma haysano waxa jira dhul badan oo dawladdu leedahay oo lagu habsaday ama madax dhisteen ama ma garanaysaa dad kale hab qaateen bool boobe baa jira oo wax laga qaban waxa ay dangood hadii laga hadlaayo in horta dadka dhulkii dawladda degay la burburiyo inta laga yimaado nin dhulkiisa leh oo sharci ah oo helay oo xaqiisa in la burburiyo lagu tunto maaha dadka ku tobanayo madaxda laga dhigana mas'uuliyad daro weeye waa inuu talaabo ka qaadaa hadii la rabo nabad waa inuu dadka horta ka xayuubaya xilkii hayaan sababtoo ah anshax iyo mas'uuliyad midna maaha dawladnimaduna maaha wax la isku cabriye dawladda in la baro way horta dadka ninka mas'uulka laga dhigaya ama wax loo dhiibayo inuu dawladda yaqaan dawladdu waa shacabka dawladda shacabkuna waxay markaa doortaan dad u adeega dadka u adeegana waxay u dhiibtaan qaanuunka ay ku dhaqmaan qaanuunka ay goosteen oo ku heshiiyeen
bay dadka waxay dhahaan nooga adeega meeshan waxaan u arkaa in qaanuunka uusan jirin in wax soo sharciya jirin in nin kasta wuxuu doonayo sameyn haddana accountability iyo xisaabtan jirin dadku see u qancaya seeba dadka u qancinaysa madaxweyne oo aad leedahay dadkii baan qancinaya wixii falka geystay wixii dhibaatada geystay haddaan la qabanayn haddaan la xirayn haddaan ma garanaysaa tallaabo laga qaadayn oo ninkii meeshiisa joogo xumaantii iyo balaayadii uu falkiyo ma iska ursanaysa ma iska dhigaysanaysa dadka in xilka laga qaado way mas'uuliyad darrada sameynaya mid baan u naqaanaa nin kasta wuxuu ku hadlay iyo wuxuu dhaho meeshan waxaan dhahaa Soomaaliya waxa maqal Soomaan nin kasta hadlaa nin kasta xumaan ka shaqeeya waa la yaqaanaa waxana way waxay tani keenaysaa ma hadda keenaysaa waxay keenaysaa mid lagu baaboobay keenaysaa waxaan qabaa waxba laga qaban karaaye inta goor tahay in wax laga qabto rag dadku ma aha cawaan waxa la dumiyay 1856 oo faarax daartiisa baa la dumiyay waa 1956 waa taariikh weey oo faarax baa lahaa wiilkiisii xasan baa dhaxlay maxamed xaaji xasan baa dhaxlay eedadiis buu siiyay caashe ismaaciil oo faarax taariikhdii baa naqaan guriga caynkaas baa la dumiyay guriyaha ka halka ku yaal oo la leeyahay xaafadda dekada u dhow dekadu iyada noogu timi dekadu xaggaas yahay iyada noogu timi dekadu dawladdu waxay samaysay in dadka lacag la siiyo guryaha leh oo line la mariyo line-kii baa la fujiyay laynkii waa la fajiyay laynkii wuxuu yaalaa masaajidkan ee ku yaala magaraysa 5 star baa wali calaamadii taal intaasoo meelood in la dumiyo bay ahayd haddaan taa la raacayn waxa weeye dadakan in la tixgeliyo waay haddaan la raacin calaamadii dekada loo dhigay waa nogol lahay laakiin maxay dawladdu ahayd dadka waa loo caawil celinaya dadku xayawaan ma aha dawladdu waxay u dhisan tahay waa shacabka inay u adeegto adeeg lama helo caafimaad lama helo waxbarasho lama helo wadooyin fiican baa hadda aad waa sameynaya laakiin waxa weeye wali fari kama qodna wali hawshu fari kama qodna shacabku waa inay helaan xuquuq waxay u leeyihiin cashuur bixiyaal way waa inay nabadgelyo helaan nin baa xabad la isaga dhafanaya la leeyahay aan waxba loo qabanayn aan waxba loo tarayn la iska dhaawacaya oo la iska dilaya gurigiisa inta loogu yimaado haddii nin kasta gurigiisa inta loogu tago in xabad la dhacay noqonaysa arrintan wax ka qabo nimanka ku imanayo kule waxaan qabanayna horgal baan u aqaan ciiday wax u qaban karaan iyo ciiday wax u keeni karaan iyo ciiday wax tari karaan midna male waa horgalayaal waxay qaban karaan male yeesan ku reerin hebel baa dhalay iyo kana dhalay iyo kan waxa waxa ka bax dadka dhibaatadu gaadhay la hadal hadba nin magaranaysaayay hebel igu yeeray maxay qaban karaan waxay qaban karaan male maxay ahaayeen ayaga waxba ahayn dadan waxba ahayn baa dhageysanaysaa oo leedahay waxa weeye kaale hebelow dadka waxa wax ka go'aan dhageyso dadka magaalada degan oo eelka oo magaalada raba inay horumarkeeda dhageyso nin hadeer yimi oo 89 yimi baa dhageysanaysaa leedahay ka waran waxaan hadeer wada yimaado waxay kala yihiin male wax daayeero oo wasakh oo waxba kala garanayn baad wareysanaysaa marka waxaan ku leeyahay miirka kugu soo noqdo dadka waa inaad wareysataa dadka wareyso xaq leh wareyso dadka laga dumiyo guryaha dhibaatada u gaadhay wareyso saas wax loo dhahay ma aha mid iska qabqabla oo tuuga been ku sheegay intee been lagu sheegay adiga intee been lagu sheegay marka waxaan nabadgeeda in laga shaqeeyo waa arrin fiican way okay bye wabillahi tawfiiq